وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan shuhadadii ku baxday gacanta kuwa aan ugu yeeri karno inay yihiin abnaa'u jahannam ama ciyaalkii naarta kuwa ay yihiin waxaa kaloo oon runtii ilaahay subxaanaه wa tacaala u weydiinaynaa inuu u boogadhayo inta ku dhaawacantay dadka soomaaliyeed inta ku dhimatay weerarkii ay soo qaadeen abnaa'u jahannam waa shuhado ilaahay idankiis waxaana ilaahay u baryaynaa inuu ilaahay u aqbalo shahaadadooda qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenna waxaan leenahay samri iyo iimaan allah idinka siiyo waxaan idinla wadaagaynaa xanuunka waxaan idinla wadaagaynaa murugada iyo tiiraanyada kuwa dhaawacmayna ilaahay idankiis waxay u tahay dembi dhaaf waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad deg dega inuu ilaahay siiyo waxaa xaqiiqo ah dadka soomaaliyeed inay ogaadaan ninkii cumar bin الkhadaab dilay radia allahu tacaala canhu ee cuثmaan bin cafaan amiir اlmu'miniin dii nuurayn dilay radia allahu tacaala canhuma labadaba inuusan ayaga daynayn waxaa u yaallaayey waa laba khiyaar midun inaan dooranno annaga iyo shabaab iyo magaca saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano laakiin islama noolaan karno waxaan rajaynayaa sida shacabka soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladdooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa waxaan rabaa inaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeenna sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay ee naftooda u huray inay badbaadiyaan carruurtooda walaalahood hooyooyinkood iyo aabbayaalkood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaad tihiin mujaahidiin dhaba waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan ilaahayna jihaadkiina ha idinka aqbalo intiinii ku shahiidayna waa shuhado inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa'u jahannamada ah ayay ku dhaawacmeen waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana u boogadhayo waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaali bay nagu yihiin dadka soomaaliyeed waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay waxaana gudan doonaa ilaahay idankiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaadhsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaabis ka yimid cid kasta oo xadgudub ka yimid intaba waa lala xisaabtami doonaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inayna mar damba nagu soo noqonin